بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واي سلامي دمان صاحب يلا واي سلامي halkan waxaan rabaa inaan ku duubo qaabka loo xariisanayo DV lottery waxaynu ognahay inuu furmay DV lottery-gu 7 bishan furmay bishan 10aad 2020 asxaab badan baa soo wadsay qaabka loo xariisanayo insha Allah halkan waxaan ku tusi doonaa si kooban baynu isu dul istaagi doonaa insha Allah weegi doonaa hadii Ilaahay idmo insha Allah waxbay anagoon sii dheerayn talabada u horeysa aad qaasa waxa weeye inaad Google ku qorto DV lottery waaye Google markaad ku qorto DV lottery waxa ku soo baxaya markaa result kala duwan baa soo baxaya waxaad eeganaysaa halka u sareysa ay ku qoran tahay dvprogram.state.gov marka inaad iska hubisaa website-ka saxda ah ee dawladda Mareykanka ayaad ka xaranaysaa waana halka .gov u dameysa .government waynu domain-ku ahaada waxa jira website fayga oo maaragtay macluumaad fayga macluumaadka marka arursanaya jira ama oranaya maaragtay lacag bixi ama doonaya lacag inay fraud ka qaadaan DV lottery marka la xariisanayo wax lacag la iskama qaado waa completely dhamaantii waa free kaliya waxaad u baahan tahay inaad soo qaato passport size passport photo sawirada maaragtay passportka lagu talagalay cabirkiisuna uu yaraan yahay 600 ilaa times 600 uu yahay kaliya ayaad u baahan tahay sidoo kale waxaad u baahan tahay passport ayay ku soo dareen dhawaan passportna waad u baahan tahay si aad u geliso marka passportna marka u geliso marka sidoo kale waxaad u baahanaysaa passportkaas talaabooyin lagu gudbi karaya mar qaar ko jira oo qofka hadaan haysan oo kala laakiinse waxa muhiim ah qofka inuu haystaba ayaa fiican ayaa wanaagsan marka waay hadaynu eegna hadaba website fara badan baa jira waad iska ilaalinaysaa ka saxda ah baad kaimiga wuxuu leeyahay lottery-ga ka muhiimka waxaad qaadanaysaa ka u sareeya marka ayaad kili garanaysaa marka waay halkan hadaba u nimaadna waxay noo soo baxay electronic diversity visa US Department of State website-ka saxda marka dawladda Mareykanka weeye Department of State hoos baad u soconaysaa halka waxaad ku dhufanaysaa begin entry 22 marka doonaysaa inaad xariisto waa begin entry waad ku dhufanaysaa marka waay haddii rabto inaad akhrido photo tusaalayaasha sawirada DV instructions-ka laga baahan yahay waxyaabihii marka aad u baahan tahay macluumaad ayaad eegay karaysaa akhrin karaysaa sawirada hadayna eegno laga baahan yahay waay halkan sawirada muhiimka ah ayuu inoogu sheegaya marka sawirada muhiimka la rabo inaad isticmaasho sawirku inuu clear ahaada oo ahaada marka pixelkiisu aad u fiican yahay sida ka inoo TikTok green-ka inoogu qoran tahay oo kala waa inuu ahaada marka laakiin hadduu had iyo sawirku yeesho waad maaragtay automatically ba systemku wuxuu ka dhigayaa disqualified inaad marka ku guuldareysato ayuu ka dhigaya marka sida ninka garanka madow xiran sawirkiisa waxa ku jira marka had baa ku jira kala sawirka saddexaad baa la mid ah oo la saaray marka plus kala saaray isagana waxa ku jira had baa ku jira sawirka afraad buu fiirso waa clear saasa marka waxyaabaha laga baahay bay kamid tahay marka waad akhrin karaysaa marka waay halka marka dabo nimaadna aad akhrisato marka rabto inaad process-ka bilowdo automatically waxaad ku dhufanaysaa begin entry baad ku dhufanaysaa marka begin entry bilow marka inaad marka xariisato ayaad bilaabaysaa marka waayahay markaad xariisto kadib waxa ku soo baxaya talaabada u horeysa wuxuu ku soo saaray wax la yiraahdo authentication code ayuu ku soo saaraya code kan oo ah marka in garanaysaa lagu hubinayo marka ayaad gelinaysaa marka inaan computer soo xarinayn ama automatic loo soo xarin ayuu ka hubinaya marka waa for security reason kaliya waad xarinaysaa marka xarfaha barta ku qoran baad gelinaysaa marka waay K Y D 3 K 5 marka waxaad ilaalinaysaa capitalka xuruuftaasi waa xuruuf waaweyn K weyn
y weyn d marka waad hubinaysaa xarafka hadduu weyn yahayna waad weynanaysaa hadduu yar yahayna waad yaranaysaa iminka xarfuhu waa wad weyn yihiin kadibna submit baan ku dhufanayaa markaa submit ayaan ku dhufanayaa waayo markaan submit gudhaado ku guulaysto xarfaha si sax u qoro wuxuu ii gudbinayaa qaybta 1 part 1 internet information xogtaada koowaad buu ku gelinayaa waayo halka u horeysa waxay nagu qoran wax la yidhaahdo name magacaagii baad gelinaysaa magacii marka loo yimaado wuxuu usoo horreysiyey last name ama family name magacaaga u dambeeya ayaad gelinaysaa magacaaga saddexaad ayaad gelinaysaa marka last ama family nameka waa maxay waa magacaaga saddexaad baad soo horreysiinaysaa marka waaye magacaaga saddexaad waaye xasan oo kalea markaa weeye magacaaga saddexaad ee awooga first name magacaaga u horreeyaad gelinaysaa jaamac marba magacaagu wuxuu yahay middle name waa magaca dhexe faarax oo kalea marka waad iska hubinaysaa marka waa inaad iska akhridaa last nameka usoo horreeya last nameka ayaad soo horreysiinaysaa ama family nameka waa magac marka awoogabaad ayaa u horreynaya magacaagii u horreeya baad gelinaysaa halka labaad halka saddexaadna middle name oo magacaagii dhexe marka ah waayo hadduu magacaagu faarax jaamac xasan yahay xasan baa xagga hore gelisay lastig namekii first namekaagu waa jaamac middle namekaaguna waa faarax marka waaye halkan waxaad u imaanaysaa markaa gender waxa la yidhahdo haddaad maaragtay markaa waa jinsigaad tahay marka haddaad male tahayna nin tahay male baad gashanaysaa haddaad female tahayna female baad gashanaysaa waaye halkan waxaad gelinaysaa date of birth waqtiga aad dhalatay markaa waxyaabahan macluumaadka aad gelinayso macluumaad iska gelinaysa waa inaad macluumaadkaaga saxda ah gelisaa waqtiga aad dhalatay id haddaad leedahay haddaad baasboor leedahay waqtiga kugu qoran baad gelinaysaa markaa labada jeer baad gelinaysaa marka waaye waayahay saasaad u gelinaysaa markaa halka horeysa waa bishii waa dhaygii halka labaad halka saddexaadna waa yeerkii markaa halkan waxaad gelinaysaa city where you were born magaalada aad ku dhalatay baad gelinaysaa marka marba magaalada aad ku dhalatay baad gelinaysaa markaa beer city sida baasboorkaaga ugu qoran ama idhigaaga ugu qoran ayaad u gelinaysaa markaa macluumaadkaagu mar kasta hubi inuu sax noqdo markaa country where you born dalka aad ku dhalatay ayaad sheegaysaa markaa waaye dadka soomaaliya jooga soomaaliya ay sheeganayaan dadka qofka soomaaliya ku dhashay qofkaasaa meeshuu ku dhashay buu sheegayaa markaa meeshaad ku dhalatay waa muhiim markaa ayaad gelinaysaa beenna ka sheegi maysid dalkaad joogta geli maysid laakiinse meesha aad ku dhalatay baad gelinaysaa markaa your birth country waaye halkan number 6 wuxuu leeyahay country of eligibility of DV program waddanka markaa aad markaa waddankaaga in loo waddanka aad lagu ogolaya inaad ka soo xareysanaysa markaa DV lottery-ga marka waxaa jira wadamada qaarkood aan DV lottery inay soo xareystaan loo ogolan markaa DV lottery-ga wuxuu maraykanku u isticmaalaa in ma garanaysaa loo isticmaalo wadamada dalkooda ku yaray ku soo qaataan si aad wadamada qaarkood dadkooda mar already aysan u baahnayn baa jira ama horay dadkooda uga buuxeen markaa dalkooda si aad daraadeed waxaad dooranaysaa dalkaagii baad gelinaysaa hadduu maaragtay dalkaad ka soo xareysanaysaa dalkaad ku dhalatay lamid yahay yes baa odhanaysaa haddii kalena no baad dooranaysaa kadibna dalkii ayaad kasoo dalkaad ku nooshahay waad ka dhex dooranaysaa markaa waaye haddaad dalkaad ku dhalatay oo halka sare soo gelisay ku nooshahayna yes baa u deynaysaa markaa waaye halkan baasboorka waxaad gelinaysaa intii hore baad gelinaysaa magaca baasboorka kugu qoran last namekaaga first namekaaga iyo middle namekaaga magacaaga dhexe kadib halkan waxaad gelinaysaa passport numberkaaga ka soo qoraysaa passport numberka passportkaaga passportka xilligu ka dhacay aad gelinaysaa monthga dayga iyo sanadku dhacayaba waad gelinaysaa markaa waaye kadibna country of issuance waddanka bixinaya markaa innaga Soomaaliya oo kale ayaad gashanaysaa markaa waaye haddii aadan baasboor lahayn markaa way kugu adkaanaysaa badanaa waxaa fiican inaad baasboor haysato ayaa wanaagsan markaad xaray doonaysa inaad xaraysato iminka maadaama ay ku soo dareen iminka ay ka dhigeen maartay wax loo baahan yahay markaa waaya haddaadan haysan laakiinse iminka waxaad samayn karaysaa inaad doorato tan saarto passport I am not required to submit the passport information because kadibna talabaad baad dooranaysaa markaa national ministry government from my country inaad dalkaaga markaa iminka aysan ku suurto gelin ayaad gelinaysaa markaa ama stateless inaad geyso oo no nationality doorato inaadan stateless tahay aad qaxoonti oo kala tahay markaa dad ka qaxoonti wixii lamada haysto markaa waaye halkan kadib waxaad gelinaysaa lastiga waxaad gelinaysaa sawirkii baad soo upload garanaysaa soo dooranaysaa markaa waaye halkan waxaad gelinaysaa adresskaaga ku nooshahay magaalada ku nooshahay markaa adreskeeda su'aalan
sheekh madar oo kala waaye halkaas in care of waa optional iyadu marka qofka haddii qof ku xiranaya laakiin si adresska laymanka waxaad gelinaysaa marka xaafadda aad ku nooshahay ayaad gelinaysaa marka soomaaliga xaafadda aad ku nooshahay magac la yidhaahdo soomaalina ha noqdee soomaali iyada habaad qoraysaa marka say marka daruuri ma aha city magaalada aad ku nooshahay marka magaalada aad markaad degan tahay iminka deganaanshahaan adreska ku ah ayaad gelinaysaa kadibna district ama stateka markaa ayaad gelinaysaa state ama district